waxaanu ka nimi magaalada Djibouti oo shir wada hadal uga socday labada guddi wada hadalka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo waad ogtihiin oo 8 qodob ka soo baxay oo warbaahinta aan gelinay lagana wada warhaya insha Allah bidmillaahi kariim fadhiyaal ka dambeeya iyo kulamo ka dambeeya oo aanu yeelanayno aanu jecelahay inaanu ku guuleysano yaanu rajeynaa inay dhacdo iyadana si fiican يجوي في عنبا شركة سكونة بلاد كنا دماضي هدي بدك دولة جيبوتي أو شركة هوها نقولنا سور دويسي نقولنا هدي بدك شرفتي السورة كاية كنتي وهي تسير هذا ورنا النوف ولسنا عادي عادبان مدحوين هذا يمام كذا كذا وقوم هاد علينا حبني عنو قوي هذا اللي نقولها كيمي مامك Soomaaliland oo si aad u sharaf badan dad qodobada soo saarteen intooda badan waxay u eegayeen kuwii aad sabab ku saarteen meel oran karo mad ka wareegaysan in qodobada masiiriga garan waayeen 12 qodob ee ka soo baxay shirkii Addis Ababa waxay saldhig u yihiin wada hadalladayada kuwa kasta oo la gaaro muddooyinkan dhow oo dhan waa inay saldhig u yihiin kuwii hore lagana bilaabaa maxaa inoo ka qabsoomay waay maanta aanu shirkii Addis Ababa taginay iyo maanta waa farqi weyn baa u kala duwan xaajoodka wax badan baa ka dhashay suuragal may noqon jirin maanta inaanu ragga kan iyo airportka ka soo degno may ahaan jirin wax macquul ah maantana waad aragtaa hadalkaas waa mid aan taageersanahay waa mid loo baahan yahay waxaanu taageersanahay wada hadalka iyo heshiiska Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo boqolkiiba boqol waanu taageersanahay waana raacsanahay